آموس كدير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت روح إلهي ما أنت أخرر ما الله ما أنت أخرر ميسن أما خير هكوها الله أما هيسك آموس طول الصمت آموس كدير يروح إنه آموس كبتصدو روح وحي السيساء قدرين حشمد ماموسد وزن اي قيمه يوياش الروح لكن روح دي هذا الكيسو بطو او ثرثار نقضه وحال ليه حتى مجالستي سوا لغا عريا وركي هذا الكبدنا وا سو سocda ليه تي هذا الكبدنيد ور بدنا ها فديga حتى وا لو كلا عرري او قدرين مله لان هذا الكفرها بدن روح قيمهيسو دلا سأصدرت بالنبي نوح صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت وحال لازمت أخلاق وناك يا آموس دير كدبنا النبي وحو كدب بيسي صلوات ربي والسلام عليه إلهي نفتي يدو قعنتي سأي كترتان كدارتي ما تجمل الخلائق بمثلهما لبضا وحلم ذا خلائق ذو اسكما قرحيان وحلا اسكو قرحيو waxa ugu quruxsan oo ugu qiimo badan akhlaaq wanaagsan iyo aamus dheer ruuxu inuu khayr ku hadlayo hadal murti'a ku hadlayo wanaag ku hadlayo iyo inuu aamusan yahay qiimo badan bay ruuxa siinaysaa adduunyo aakhiraba qadarin badan bay ruuxa u soo kordhinaysaa akhlaaqda wanaagsan oo ruuxa dhaqankiisa inuu hagaagsan yahay ruuxaasi wuxuu yeelanayaa labis quruxsan oo macnawiya buu yeelanayaa oo soo jiita dadka lagu qadariyo lagu qiimeeyo ayuu yeelanaya akhlaaqda wanaagsan marka walaalayaal inaynu ku dadaalo waa laga maarmaan akhlaaqda xunxunka ana inaan ka fogaano akhlaaqda wanaagsani wax weeye in qalbigeennana aynu hagaajino la dhaqankeennana aan hagaajino qalbigaagu waa inuu xasadku ka baxo oo xumaantu ka baxdo oo nacaybka dadka uu ka baxo oo qalbigaagu uu noqdo saliim saafi ah صافئة هذه اللي حماية وركوتالا ملهيد قلبي قدتك وحكومة قادم هدات كو قبطانا واتكسرتا قلبي إنه نظيف يا الروا قلبي قال نظيف تابنا إلهي أكتي سوح لك جهلا حداد نقطة عقد لو حاسدة وضدك النعب وضدك وحي إلهي سي تبارك وتعالى كحسته oo qalbigiisa ay xumaani ku jirto hadaa tahay hada wax weeye kullu inaa'in bima fihi yandah qalbi xumaani ku jirto xumaan u dhiiqa xubnihiina xumaantii bay ku kacayaan awalan marka in qalbiga la nadiifiyo carabka la hagaajiyo xubnaha la nadiifiyo muaamalada la hagaajiyo xubnahaaga iyo jirkaaga iyo noloshaadu kontroolanta la doonaya akhlaaqda wanaagsan waa saas waxay ka bilaabataa qalbiga la sifeeyo la hagaajiyo kadibna noloshii kale to ruuxu is hagaajiyo akhlaaqda wanaagsan waa saas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam alayhi hadith ibn majah uu soo saaray min hadith abdullah ibn amr ibn aas ay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam khayrun nasi dhul qalbi al makhmum wal lisan as sadiq ibn sallallahu alayhi wa sallam dadka waxa ugu khayr badan ruuxa qalbiga makhmumka leh arabka runta badan leh saxaabadu waxay yiraahdeen rasuul ilaahayo garanay carabka runta sheegay famal qalbul makhmum baydeen qalbigan makhmumka maxaa laga wadaa markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam huwa at-taqiyyu an-naqiyyu alladhi la ithma fihi wala baghya wala hasad qalbiga oo makhmumka waxa weey waa qalbiga alla ka baqa baqdin ilaahay iyo cabsidiisa ku jirta وصافي أو نظيف وسخ يشكي يجهلي يكمتشرو قشن كمتشرو شبهات شهوات كمتشرا ونظيف لا إثم فيه دم بدحليس كمتشرا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغي قرد الرأي حد قذبنا كمتشرو الضوء ماذا ما قرد الرئيس من الظلمية أفي أدين تونا ولا حسدنا كمتشرو قلبك أنت كفيو بل إلى القلب المخموم صاحب كيسون وصاحب كذاتك هو خير بدون وقلبي النظيفة الله كعسبة كتير إيمان بكبوحة قناع سنام بكتيرته ذنب مله حسد مله
xadgudub male gardarram male uurku taalle iyo male maartay ee cuqdad male qalbiga noocaasa saaxibkiisu dadku ugu khayr badan markaas saxaabadu waxay yiraahdeen faman ala atharihi